السلام عليكم يا قرة ميل وماجكتين ومركلي مقال عصبا كو يجي doona wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo wax walba oo ku aadan suuqa Real Madrid iyo Man City oo ku dagaalamaya lambarka 10aad ee kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen Bayer oo dalabkii koowaad ee ku aadan Trippier laga soo diiday Arsenal oo dhaqaaqda soo qaadashada Benjamin Sesko oo RB Leipzig Liverpool Chelsea oo isku haysta saxiix weyn Man United oo doonatay goolahayaha kooxda kubadda cagta ee Lazio Arsenal oo markaan wada hadal la bilowday Ajax waxayna ka rabaan daafac iyo Liverpool oo rabta inay ka dulqaato kooxaha daneynaya Ivan Toney afduub ay rabaan inay sameeyaan hadii aan muuqaalkeeshan walaal garay kanaalkana subscribe noo saar hadii aan ku bilowno wararka kooxda kubadda cagta Arsenal waxyaabaha ka cusub dhammaan Arsenal da isku soo qabano kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa wada hadal la bilowday kooxda Ajax oo ku aadan laacibka la yiraahdo Jerry Hota laacibkan ayaa laacib daafac ka ciyaara kooxda Arsenal ay rabto inay ka soo qaado dhanka Ajax Amsterdam ayaa ninkan uu yahay ciyaartooyda ugu muhiimsan waxayna rabaan inay siyaastaan laakiin laacibkan oo daneynaya inuu ka dhaqaaqo horyaalka Holland ayaa markaan cadaadis wuxuu saaraya kooxdiisa Ajax wuxuuna rabaa in la fasaxo sidaana waxa ka faa'iideysanaysa kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa haatan diyaar u ah in laacibkan wada hadal la bilowdo kooxda Ajax ay ku qanciyaan qiimaha ay ku doonayaan laacibkan waa laacib daayir waa 18 jir waxa la yiraahdaa waxaa lagu magacaabaa Jeremy Horta marka ninkan ay Arsenal dareelayaan dhinaca kale kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa u dhaqaaqday soo qaadashada Benjamin Sesko oo weerarka uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee RB Leipzig laacibkan ayaa laacib lambarka 9aad ka ciyaara oo cajiiba kooxda Arsenal ayaana daneynaysa inay laacibkan soo qaataan Arsenal ayaa diyaar u ah inay haatan wada hadal la bilaabaan dhigooda RB Leipzig wararka qaarna waxay sheegayaan in laacibkan oo ogolaadaba inuu ku biiro Arsenal labada dhinacna ay rabaan markaan inay ka wada joodaan arinta marka Arsenal weeraryahankan ay rabaan inay soo qaataan RB Salzburgna ay ka soo qaadaan dalka Austria ciyaarta marka ninkan dhinacay Arsenal inuu ku biiro ay sheekadu isku lagu dawanaysa marka ninkan waxa waaye dhinacay Arsenal sidoo kale heshiiskiisa xataa qayb waxa ka kooxda kubadda cagta Chelsea oo iyadu meel walba ku jirta Chelsea iyo Arsenal ba suuqa meel walba way ku jiraan hadii aad aragtaba player lambar 9 ciyaaraya Chelsea Arsenal on waaye marka labada dhinac laacibka wada doonayaan laakiin Arsenal ayaa haatan fafreed ah oo laacibkan ku cadcad kooxda kubadda cagta Salzburgna wada hadal la bilaawaysa dhinaca kale kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa iska diiday dalab uga yimid kooxda kubadda cagta West Ham kaas oo ku aadan laacibka Smith Rowe laacibka lambarka 10aad ee garoonka Emirates kursiga keedka ku daala dhacaya ay markaan West Ham rabeen inay soo qaataan laakiin Arsenal ayaa gabi ahaan diiday waxayna rabaan in laacibkooda ilaashadaan marka nimanku Arsenal ahay waxay taagan meeshaada iska sii joog dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich dalabkii koowaad ee ka gudbiyay ninka lagu magacaabo Trippier waa laga soo diiday waa rasoo reject gareeyay marka laakiin Trippier iyo Bayern Munich weeshiyeen isagoo diyaar wuxuu u yahay dhinaca iyo Bayern Munich inuu wareego laakiin Newcastle United oo ninkan ku far adeegaysa ayaa waxay rabaan in laacibtan si cishtaan garoonka James Bagna ay ku sii hayaan sida daraadeed kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa marka laga sugayaa dalab labaad inay gudbiyaan dalabkaasna wuxuu noqon karaa mid ay Newcastle ku qanacdo ama mid kale oo Newcastle mar labaad ay soo diido marka Newcastle iyo Bayern ayaga ayaa ishaymahane Trippier wuxuu diyaar u yahay inuu noqdo ciyaaryahanka saddexda Ingiriis oo dhinaca Bayern adag kadib Harry Kane iyo Eric Dyer marka ninkan dhinaca Bayern ayuu u jeesayay dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa mar labaad dib ugu noqotay weeraryahanka kooxda kubadda cagta Ajax ninka xoog weyn leh ee la yiraahdo Bobia macalinka la yiraahdo Erik ten Hag ayaa daneynaya wuxuu rabaa lambarka 9aad inuu ku xoojiyo hal Haaland iyo Anthony Martial oo qos laga taagan yahay ayuu Old Trafford ku haystaa marka laacibkan ayuu rabaa inuu ku xoojiyo kooxda kubadda cagta ee Manchester United marka wararka qaarna laacibkan ku aadan dadka waxay ka qoriyaan in Manchester United iska diiso oo weeraryahan kale ee doonato maadaama ninkan ay dadka qaar la barbar dhigayaan Romelu Lukaku marka Manchester United macalinka ten Hag ay uga dhigan tahay wiilka Ajax oo ciyaaray Bobio inuu soo qaato marka ninka xoog weyn leh Old Trafford ayaa laga doonayaa Man United maray doonatay markiina waa laga soo diiday haatan ay dib ugu noqonayaan dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo goolahayaal Master ninka dhibka badanna dhinaca Afrika iyo xulkiisa ayuu jiraa waxay doonteen goolahayaha kooxda kubadda cagta Lazio ninka lagu magacaabo Ivan
Barvella ninkan cidii xasuusato waxay ku xasuustaa Atletico de Madrid iyo Lazio kulankii group stage-ka oo xilliga dhimashada uu ka dhalinayay waliba daqiiqadii 94 lambarkiisana waa 94 marka Manchester United gool hayaan ayay doonteen waxayna rabaan inay soo qaataan Bayern United haddii gool hayaan inshallah waxay heleen gool hayaan marka United-ka ayaa haatan dardar gelinaysa ayaa la leeyahay laacibkan inay ka soo qaadaan kooxda kubadda cagta ee Lazio dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Liverpool markan way soo dhigteen nimankiisa u aamusnaayeen markan way soo dhigteen Salah markuu dhaawacmo kadib iyo arrimo kale soo baxeen iyo way soo dhigteen markan waxay taagan yihiin laacibkii Victor Gyökeres oo ciyaar kooxda kubadda cagta Sport Lisbon waa 22 gool xil ciyaareedkan ninka dhaliyay ayay rabaan inay soo qaataan Chelsea iyo ayaga ayana ka dhex tafantaa sheekadu marka kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa diyaar u ah 73 milyan lacag ka badan inay laacibkan ku kharash gareeyaan walow kooxda Sport Lisbon ay ku doonayso laacibkan lacag gaaraysa 100 milyan marka Liverpool haatan suuq ay soo galeen lambar 9 ay ayagana raadinayaan Chelsea oo markaan ninka looq ugu jirtay oo isbaboojeynaysa waa loogu yimid ninkaana markaan dagaal adag ayaa labada dhinac u dhaxeeya dhinaca kale isla Liverpool waxay sameynaysaa shock iyo la yaab waxay rabaan inay afduubtaan Ivan Toney waxaa maqli jiray sheekada daacunwiis waa lagu cunayaa Arsenal iyo niman kale yiraahdo Chelsea oo isfiirsanayeen oo ninkan Ivan Toney midba mar ay waxay sameeyeen inay dhahdo waa rabna saan waa inta ka dhacday laakiin Liverpool markan waxay taageeyeen Ivan Toney anaga ayaaba qaadanaynaba oo xil ciyaareedkan horyaalka Premier League ku duuleyna oo ku qaadeynaba marka Ivan Toney isaga ruuxiisa uu soo laabtay 8 bilood kadib garoomada ayuu ka soo noqday ciyaartiisii koowaad ayuu ciyaaray ugu dambeyn kooxda kubadda cagta Liverpool meesha dalaq ay soo tiri waxayna rabaan laacibkan inay ka dulqaadaan kooxaha daneynaya oo Arsenal iyo Chelsea ay ugu waaweyn yihiin marka Ivan Toney dad ayaa soo gaba kashtay oo markaa raba inay qaataan oo Liverpool inaba caadi maahan dhinaca kale kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub Real iyo City labada ugu cadcad waxay isku haystaan laacibka la yiraahdo Valerida Reiters oo ciyaar kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen laacibka lambarka 10 waa laacib fantastic waa laacib wax kala kooxda kubadda cagta Jarmalka ka ciyaartay xil ciyaareedkan 7 dhibcood hoggaanka ku haysa caawana nimankii ay garaaceen RB Leipzig oo 3-2 xil dambe kaga badiyaan marka wiilkooda kooxahan ayaa isku haysta kooxa kale to Bayer xataa gadaal ay haatan ka soo gashay marka update-ka ugu dambeeyay ninkan Brexit ay soo dhacayaano kooxahan dhamaantood waxay daneynayaan laacibkan inay soo qaataan laakiinse kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen macalinkooda Xabi Alonso ayaa sheegay laacibka inuu sameeyna ka aadi doonin xil ciyaareedkan ee ku dagaalami doona een fasixi doonin marka ninkan dagaal adag ayaa loogu jiraa dhinaca kale kooxda kubadda cagta West Ham United ayaa markaa gacanta ku dhigaysa meel cidlana ka helaysa ninkan lagu magacaabo Kevin Phillips Barcelona waa iskaga baxeen kooxii kale raadinayna waa iska diyaayeen marka City laacibkan iyagu waxay rabaan inay fasaxaan West Ham United ayaana diyaar u ah inay qaadato markaana dalabkii koowaad oo amaah ay rabaan inay ka gudbiyaan halka iyo London Stadium garoonka ku ciyaaraan inay geeyaan haddii aan muuqaalkeena la garay kan ka subscribe na soo gudbaa